waan ilmaynayaa markaasoo kale. sheekh shariif ayaa waxaan ugu tegey afgooye isagoo booqanaya. khayr laasiya sheekh shariif madaxweyne qiimo badan balan lama ahayn. soo daya wiil turxabeeb waa u galay. maxaan wataa projector, maxaan wataa laabtoobkaygii. sheekh shariif yaa la joogay, waxaa la joogay wasiirkiisii arrimaha gudaha cabdisamed ayaa la joogay. waa muhiim arrintan. ayaa la joogay. filinkiaan u daaray. waan xasuustaa waxaan u daaray bukaan 20 jir ah oo qaawan oo matanto wadan oo ku xiran silsilad adag meel miyi ah ku xiran. sheekh shariif iyo cabdisamed waa 7 sano. roobka ma laga soo gelinaayo, kanaacada way cunaysaa qoraxdii. sheekh shariif iyo cabdisamed waxaan ka codsaday lacag inaana ka rabin, dhaqaale inaana ka rabin, mantal healthiga ugu baahanya oo keliya madaxda qaranka inay ka hadasho. nasiib darro kambeynkii baa ku yimid ee lagu dooran doono xasan sheekh maxamuud. waa u cudur daarayaa madaxweyne sheekh shariif. xasan sheekh maxamuud waxaan kula kulmay hotel balasa city balasa ayaan xasan sheekh maxamuud kula kulmay. xildhibaanaha imaanaya fadhi buu ku salaamay. aniga markaan u tegey xasan sheekh maxamuud wuu istaagay. waa madaxweyne qiimo badan. habuu siiyey 3 daqiiqo ugu dheganaa. intuu iga dhukanayey wuxuu yidhi waryaa teeshiikan wuxuu yidhi 100 jeer baan isku kaa sawirayaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud kama been sheegayo. shaqo fiican baad qabatay buu yidhi. ma maqlaysaa? waxaan ka codsaday inuu ka hadla bas dhibaatada iyo culeyska cudurrada ku dhaca dhimirka shacabka ay ku hayaan kama uusan hadlin. labadii cabdiweli calikaas iyo cabdiweliga kale iyo saacid saddexdooda waan ka codsaday inay ka hadlaan, inay hay-adaha samafalka caalamiga naasiriin ay wax ka qabtaan dhibaatada cudurrada ku dhaca dhimirka. maanta waxay ku xiran tahay codka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo labada aqal guddoomiyeyaashooda baarlamaanka iyo baarlamaanka inay ka doodaan. hadda markaan tegey bakistaan naasiriin 2 maalmood bakistaan markaan joogay waxay casuumay sbiikarka baarlamaanka ee bakistaan. sawirka waa ku siinaya isagoo garabkay haysta. ma maqlaysaa? muxuu iga waraysanayaa mantal healthiga soomaaliya. horta mii maqlaysaa? waxaan u oynayaa aniga waxaan u oynayaa mooshin bay ku mashquulsan yihiin. soddon sano ku dhowaad kadibna soomaalida cudurka dhimirka bay la baaba'san yihiin. anigana hal qof baan ahay. waxaa nalagu casuumay 4 dhakhtar baan ahayn kal fadhigii baarlamaanka dalka bakistaan. waa nagu casuumay sawirradaan ku siinaya u fiirso. maxay ka doodayaan mantal health in bakistaan? war kuwan maxay qabaan? war dhiig mala miya kaaga sii daran? imise xildhibaan ayaa aniga ii keentay wiilashooda? imise wasiir ayaa aniga ii keentay wiilashooda ii keenay iyagoo xirxiran? kula dardaarmaa free baan ugu qabtaa. waxaan ka codsanaa marka madaxweyne
cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre iyo labada guddoomiye baarlamaan intervention inay sameeyaan inay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka inay ka hadlaan waxaan idinka codsanaa niyuusna inaad ka dhigtaan meesha aan kala hadlayo in loo helo siyaasad political commitment bas war miisaaniyaddan ay leeyihiin waynoo kordhay uu ku faanayo wasiir bayle waxba kama rabno shilin kama rabno waxaan ka rabnaa oo keliya ilaahay hadday ka baqayaan inay ka hadlaan nin buuran baan ahaa nin cayilan baan ahaa nin qurux badan baan ahaa saanba u foolxumaaday sokortaa igu dhacday dhiigkarki baa igu dhacay waxa la oynayo trauma waay ma caafimaad qaba xataa maskax ahaan maxaa yeelay ka waran nin dhalinyaro ah geed inta lagu xiray diris aan lahayn oo laga dhaqaaqay oo aad la kulantay ka waran